waxaan rabaa horta inaan run ahaantii si gacaltooyo leh gacmo furan aan u soo dhaweeyo walaalaha martiqaadkan aan u fidinay soo ajiibay weliba iyadoo xilli adagna lagu jiro oo hawluhuna ay badan yihiin habeenna ay tahay sabab ayaa jirta sababtaan xilligan idinku yeernay marka awalan sida ay wasiirka iyo agaasimuhuba ay run ahaantii idin soo dhaweeyeen baan rabaa inaan ana idin soo dhaweeyo mawduucyo kala duwan baynu maanta ka hadlaynaa oo kulankeenana uu daaran yahay marka u horeyso horta waa bal in la isbarto si toosa iyo si dadbanba shaqooyinkeenu way isla falgelayaan inaynu dadka iska baranaa horta waa waajibo idinku xagga xilka waad naga horeyseen rag muddo soo shaqeynaya iyo habla ayaad ila egtihiin inta yada cusub ee hadda weliba xilalkan xagga hoggaanka fulinta waxaan u maleynayaa anaa ugu horeeya marka cidda u baahan inay dadka barataa waa aniga iyo horta raggan iyaga bahdoodii unbaa loo magacaabayo hawsha waa u furudahay isbarashada ka sokow ragga qaar way isnaqaanaa qaarkoodna way saragnaa goobaha shaqadan isku aragnaa laakiin si mid isla mida baan dhammaantiin idiin soo dhaweynaya awalan kulankeenani barasho ka sokow wuxuu daaran yahay inaynu wax iska niraahno iskana hoga tusaalayno doorka aad ka qaadan kartaan ee hoggaamineed ee ku wajahan arrimaha abaaraha dadkii Soomaaliyeed ee annana aanu madaxda u ahayno dawladda aanu hoggaankeedii haynay idinna aad madax u ahaydeen oo aad warbaahinta madaxda ka ahaydeen ee ay ahayd labadeenaba inaynu adeegno naftoodii iyo maalkoodiiba halis ku jira inaynu iskaashanno oo culimada kaashanno oo ganacsatada kaashanno oo u gurmanno ayaa waajiba idinku waxaad tihiin qaybtii u horeysay aanu la kulanno qaybo kala duwan oo bulshada ay ka koobanta baan la kulmaynaa dhowaan waxaa talada noogu jirta inaanu culimada waanu la kulannay qaarkood iyo bulshada rayidka ah iyo ganacsatada iyo qurba joogta iyo maalqabeennada iyo dhalinyaro iyo haween dadka Soomaaliyeed oo dhan inaynu dhaqaajino baynu rabnaa si aynu uga hortagno halista soo wajahday dadkii Soomaaliyeed taa ka sokow dabcan arrimo kale oo masiiri ah oo iyana u baahan inaad door ka qaadataan baa jira amni ha noqoto kobcinta dhaqaalaha ha noqoto dawlad wanaagga ha noqoto kuwaana waynu soo tusaaleen karnaa laakiin doorkan taas ayaa ahmiyad noo leh ma noqon doono kulankii u horeeyay ee aynu kulanno kulamo kala duwan oo mawduucyo kala duwan aynu ka hadlayno aynu geli doonaa balse haatan arrinta nagu taagan qayladhaan u baahan dad u kaca u baahan gurmad u baahan waa arrinta abaaraha taas ayaan idinku yeelnay waxaan idinku tuhunsannahay dadnimo waxaan idinku tuhunsannahay nafhurnimo oo marka ay beled dhacdo waxaa laga yaabaa inta askariga iyo sarkaalka dawladeed aanu iman inuu qof warbaahinta ka jooga halkaa tago walaalayaal arrintaasaanu marti idinka nahay qaybihiina kala duwan sida aad wax u aragtaan sida aynu uga wada shaqayn karno waa arrin aan siyaasadaysnayn waa arrin adeeg bulsho iyo gurmad iyo nafhurnimo ah inaynu wax iska nirahnaan rabnaa waa mahadsantahay